قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. inta aan jikada ku jir iyada hawsha kale haysa saacad gartama ama dharkaygii bay dhaqaysaa ama ilmihii bay u qabeynaysaa ama ma aragta hawl kale haysa inta taa haysa inaan u fadhiyo ma tan aan suugo tan waa tan wada cuni leen ilmihii bay cunaaya suuq waad wax ka soo gadid oo aad keentid talaabo walba wallahi ajir baad ka helaysaa gabadhu way kugu jeclaanaysaa ilmahaagii way kugu jeclaanayaan adigana shaaday ku noqonaysaa caafimaad waana akhlaaq wanaagsan guriga markaad keentid inaad gabadhi u diyaarisid wixii aad jarto ilmiha u diyaarisid laga bilaabo cunitaankii ilaa ay qashinkii aad keentid haddana inaad banaanka geysid aad reerka ka fogeysid intaasoo dhan ajir waay talaabo walba jannadan waa la shaqaystaa gacmo isdhaafa gacal ku jira weeyaan marka hawsha in la isla qabto shay aad muhiim u ah weeyaan marka yani waxa laga yaabaa ragga qaarkii inay ugu dagaalaan oo ay yiraahdaan kayaawi wuxuu nagu diraayaa haweenka ku dirid maaha wallahi ku dirid maaha oo rasuulka gurigu ka shaqeyn jiray dharkiisu dhaqi jiray sariirtu gogli jiray gabadhu jikada ku caawin jiray kabiisu baalashi jiray dharkiisu tolan jiray gulisho ma reerku idinku diraayaa reerku dirid ma aha reerku dirid ma aha waxaan waa cibaado waa shay aad u wanaagsan gabdhaha la caawiyo aniga maxamed ahaan waqtiga aan dacwada ku jiro ama aan ku jiro ma aragtay waxbarasho ama aan cibaado ku jiro maahane inta kale wallahi waqtiga aan aad u jecelahay ee aan marnaba ilaaweynin waa waqtiga reerkayga aan ka shaqeynayo weeyaan gabadhaan caawinayo khaasatan gelinka hore subaxii waxa ay xalay oo dhan bay gabadha soo jeedi ilmahaasi u soo jeedi xalay oo dhan bay mid wax ka bedelaysay midna nuujinaysay midna dhaqaysay midna babinaysay waxa soo dhan aniga miyaan ogaamay xalay oo dhan indha mugoodan jiifi subaxii baan soo kacay gabadhii markaan soo kacayay oo ilmihii ay ka seexseexdeen markaasay seexatay xaq miya ilaahay baa ku dhaartay ragyahow in gabadhii xalay oo dhan ku raaxaynaysay oo aabihin qaylida ka daaya hajiifee wixii dhib aha oo dhan dhuuqaysay subaxii markay in yar seexatay inaad haddana intaad irid u garaacdid naawi quraacdii quraac maxaad u karin weysay hal iyo jiifta oo inaad ku qaylisid xaq ma u leedahay ilaahay baan kugu dhaarshay maxaa markaa korkaaga حتى الدين اسكدا حق دك عقلي سليم كان وحو كينيا gabadhii sida ihsaanka kugu sameysay in aad soo kacdid waliba shanqarta ay yareysid tartiib ah u soo socotid adiga sida xalay shanqarta kaaga yareysay jikada soo gashid dhaqdid wixii alaabo aad jarjartid aad karisid diyaarisid ilmihii soo kicisid u cadaydid dhar u xidhid quraacdi ina siisid ilmihi iskuulka ama aad geysid ama dugsiga aad geysid hadana ilaahay oo fasaxayeen guriga ku ciyaaran shaqadaadii aadid iyadana maxay sameynaysaa ma taqaanaa wallahi haweenka waxa ihsaan loo galay ugu fiican yihiin markay aragto wixii inaad sida u diyaarisay waa marka hore meeshaas kal gacal iyo jacayl iyo duco ayaa horta ka iimaanaysa iyadana qadadii si fiican u diyaarinaysaa hawshii inta kale diyaarinaysaa waxaad maanta soo laabanaysaa adigoo xanaaqsan oo ay rag isku soo xanaaqdeen adigoo culeysida adigoo hammi iyo murugsida adigoo ma aragtay kacsan ayaad iimaanaysaa iyadana waxay diyaar u tahay irida inay kugu qaabisho inay ku dajiso culeyska inay ka qaado iyada qaadanaysa la soco gurigeena way ku sii habaysay tan waa tan rasuulka sallallahu alayhi wasallam alayhi khadiija ay ku noolaayeen noloshaas raaxa laakiin nolol gabadhu la dhahayo wax dhaq wax kari wax habe wax ma aragtay maamul adigu gurigi wixii oo dhan ninkeena shaqo uu ka dhiganaya kasteere uu soo qabanaya maalinkii habeenkiina asxaab uu la soo sheekaysanaya ama halka ay kafeteriyo uu joogaya wallahi taa inaanay nolol ahayn ilaahayna raali ka ahayn tana guur tana nolol tana ajr tana janna jannada adduunyo qofkan galina janna aakhir gali maayo maqaayadaha iyo kafeteriyada iyo meelaha aad ma aragtay waqtiga ku lumiseen iska daayo halkaana lidin kaga baahan yahay guriga lidin kaga baahan yahay gurigan waa kan lidin weydiinayo weeyaan maalinka qiyaam ilaahay idin weydiinayo ubadka ilaahay idin weydiinayo xaaska ilaahay idin weydiinayo ma min abdin wa ku celceliya daa'iman hadiiskan
ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. qofkii mas'uul laga dhigay ubad loo dhiibay reer loo dhiibay oo haddana aana oo soo dhimanaya maalinku dhimanaya isagoo amaanadii gudi waayay dayacay ka fogaaday wax u qaban waayay aana ka soo bixin noo yimaada illa harrama Allahu alayhi aljanna iska xarimin jannada